Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Si aad uga faa'iidaysato cashiradan qaabka ugu quruxda badan leh, fadlan waxaa soo daawataa cashirkii ka horreeyay si aad noola qabsan karto. Soo daawo fadlan mar labaad. Assalaamu calaykum. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. waa mar kale iyo casharadeenii taxanaha ahaa ee barashada Microsoft Word 2021. waxay noo sii socda tablekii inagii soo qaadanay qaabka table loo soo gashto, qoraallo loogu dardaro, qaabka tableka wax looga dhiligaray haddii cell tahay, haddii isagoo dhan ay tahay, qaabka maxaan dhahay loo soo insert garaysto ama loo soo gashto column ama rows tablekaaga ku samaysan. Hadii dib kaga soo darsanaysa qaabkii waan soo aragnay. waxayna arki doonaa maanta qaybtaas merge iyo cell size iyo alignment iyo data. marka haddii aan ka gaarsiino labada dambena waan ku daraynaa waqtigu, yacni waxaan isku dayaynaa videogu sawran u xiiso beelin, yacni looga xiiso dhicin inuu 10 daqiiqo uunan ka badan. haddii intaa aynu wadno aynu ka gaarsiino waa sax, haddii kalena intaan qaadano in cashir ku xiga ku qaadan doonaa. Okay, intaanan maxaan dhahay gelin waxaan rabaa insertidii iyo waxyaabihii aynu soo qaadanay qaabab kale oo ka fudud oon u insert garayn karno inaan aragno. haddii aad maxaan dhahay tablekaaga soo dul istaagto meelaha bartaasoo kale imka columnka haddaad soo dul istaagto labadan column dhexdooda lineka u dhexeeya wuxuu ku tusayaa calaamadda plus, kan oo kale sidaas si lamida. haddaad rowska xitaa soo dul istaagto wuxuu ku tusayaa mid. haddaad iminka plus tiraahdo od yacni click aad tiraahdo row buu kugu soo daray. column haddii aad rabto matalan qiimaha iyo tirada labadan column mid u dhexeeya haddaad rabto inaad soo gashto dad bartaa plus tiraahdo iyadna waa kaa uu kuu soo gelinaya. sidaas si lamid ah haddii xaggan waxaan samayn jirnay markayn rabno inaan tablekan oo kale haddaan rabno cellskan inaan dhilgarayno saan baan u wada dooran jirnay, ama mid kamid aynu haddaan saan dhahno matalan delete entire row, yacni keliyata waxaan rabaa doorashada markaad dooranaysa dad korkaa yar aad ka doorato iyadna waad kartaa labadaba intaad shift matalan qabato keyboardkaaga dad iminka sidaas saa tiraahdo intaad saan samayn lahayd, yacni aad columnyada oo dhan aad wada dooran lahayd ood shade garayn lahayd waxaad samayn karaysaa inaad korka saa uga doorato. intaasi waa intaa. sidaas lamida haddaad right click tiraahdo xitaa waad isticmaali kartaa insert column waa kuwan, delete baad isticmaali kartaa. waxyaabihii optionska aad xagga u tegaysay ayaad xaggan ka isticmaali karaysaa. Okay, waxaynu galaynaa qaybtan merge la dhaho. merge cells, split cells, split table. marka mergeda iyadu maxay tartaa haddaynu arkaynaa matalan tablekaagii baa kuu qoran, waxaad rabtaa in aad ciwaan ku soo darsato. ciwaan keliyata ma noqon doonto, laakiin yani mergedu wax kaleeto maahan, waa inaad isku furto intanoo kale matalan inaad isku furto. matalan xaggan aynu dhahno insert above aynu dhahno row haye, dabeedna bartan baanu ku qoranay ciwaan alaabta dukaanka taala oo kale, matalan alaabta bakhaarka taala. marka xagga waxaad taqaanaa in dee maxaan dhahaye ciwaanadu ay korka saa u maraan wax walbay ka sareeyaan. marka waxaynu rabnaa in aynu laymashan iska baabiino at the same time tablekeenan ciwaankani uu korka yacni meelahaasoo kale inaan ku center garayno. marka maxaynu samayn karnaa inaan tablekii kan intaad soo doorto kan saddexdaba intaba intaad saa u doorto inaan dhaho hadda waxaad aragtaa merge cellsta inay ku active gareysmato. haddaan imika kasoo noqdo eg way xiran tahay oo hal yacni column ama hal row bes kuma shaqayso. laakiin haddaan laba column isku daro eg waxaad aragtaa ama laba row isku daro merge cells inay leedahay. marka haddii aan imika labadan saa iskugu daro oon merge cells raaho labadiiba isku furnay. maxaynu rabnaa inagu inaan kaa ilaa iyo kaa isku furno merge cells. qoraalka keliyata meesha xaggaa maro, qoraalkiina dabadeedna aynu dee center ku align garayno oo center alignmentiga waa kan alignmentiga haddaan centerka sidaa dhahno xaggan haddaad soo istaagto waa sidii adoo dhex jooga centerka. haddaan xaggan geeyo waa kaa, haddaad xaggan adoo dhex jooga aad centerka geysana waa isku mid. marka intana waynu arki doonaa waxyaabo kaleeto haddii aad directionka rabto, haddaad xaggaa rabto, haddaad hoos inuu usoo dego rabto yaro kala duwan yihiin waa tijaabin. okay, taasi waa maxay merge cells, inaad cells isku furfurto. imika haddaan kuwan oo kale isku furo okay, iyagu waxay noqonayaan de way isku hal meel iskugu imanayaan, qoraaladii hal meel iskugu imanayaan, hal cell baa kasoo dhex baxay.
يعني isku merge garee isku dar cellskayga weeyaan taas waa taa cashirkeena yani waxa shayga labaad aan arkayna waxa weeye split cells yani in la kala jebiyo cellkii la kala qaybin karo hal cell aad ka soo dhex saaran karto intaasoo kale intaasoo maxaan dhahay matalan computeriska ayaad xagan rabtaa matalan inaad tiraahdo computer laptopyadan oo kale matalan laptopyada yaala ayaad rabtaa inaad kala saarto tiraahdo laba nooc laptop baa yaala qaar la dhaho maxaan dhahay laptopka maxaan dhahay HP oo kale qaar kaleeto ama Dell oo kale aad ii yaala marka si aad wixii aad yani hal line aad laba cell ama laba shay aad uga soo saaran karto waxaad samayn kartaa split baad dhihi split markaad tiraahdo wuxuu ku yimaada imse column baan xagan kaaga soo dhex saara yani xagan yar table cellka maxaan naqaanaa intan yar housekan yar ama laptopka intuu ku dhex jiro ayuu kaaga dhex saaraya table kaaga dhex samaynaya split cell baan nahday midna imse column baan kaaga sameeyaa imse row marka column uma baahnin matalan hal column baan rabnaa laba row baan rabaa haddaan matalan dhaho laba row okay haddaan dhaho waxaad aragtaa laptopkii in uu line kale iga dhex sameeyey yani mid kaleeto oon ku qoran karo matalan laptop xagan HP oo kale amaba aynu samaynayso waxaanu samaynaynaa split laba column aan dhaho aye weliba column kale igu soo dar okay split sorry xaga eeg aan dhoodhe split aan dhaho cells saddex aye koo kiisii hore iyo laba kale aan rabaa rowguna kiisii hore iska ahaado waka dabeedna xagan HP iyo waxaad iskaga soo darsan kartaa matalan inkastoo qaab fool xumo oo iminka inuu qorna weeyaan laakiin yani macnaha guud waxa weeye inaad cellkaagii matalan cellkan oo kale aad u samayn karto laba yani cell aad ka dhigi karto laba row aad ka dhigi karto matalan haddii aad kordhiso oo kale iminka waa halkii cell iyo intaasoo shay kuu galay intaasoo shay hal cell oo kuu galay haddii aad matalan qorayso oo kale waxyaabo kala duwan mararka qaarkood kugu kalifi karta marka waa saas marka intaa split cellskuna wuxuu ka dhigan yahay inaad cellkaagii aad yani kala jebiso cells kale ka dhex samayso oo columnyo kusoo dhex darsan karto waa isla cellkii aad haysatay sidaas lamida aad columnyo iyo rows waxyaabaha kusoo darsan karayso okay intaas waa intaa split cells split tablekuna muxuu yahay inaad table split garayso oo yani tableka aad kala qaybiso oo matalan hadda maxaynu soo aragnay split cellku inuu cellka laftiisa kala qaybinayo rows iyo column aad u kala qaybin kartid inagii column labadan column ka soo sameynay HP iyo Dell ku kala qornay hadaynu rabno maxaan dhahay split rows koo kale waynu kordhisan karaynay okay rows koo kale halkan iyadna laba row xagan kaliya ta iminka ii waxaysmatay kan oo kale labaan u kala jebin karaa okay laba kan hal ka dhig okay waka hadda waxaan rabnaa in aynu matalan control iyo z kaga noqo matalan waxaa rabtaa adigoo xagan jooga yaa rabtaa in aad kala qaybiso alaabta bakhaarka taala wixii computer inaad gaar ay kugu qoran yihiin wixii maxaan dhahay deviceska lagu connect garay sida hard diskigi iyo mouse-kii cable-kuna inay gaar kugu ahaadaan marka maxaad samayn marka koobaad waxaanu samaynaa insert baan dhahaynaa insert below dabadeedna bartan oo kale maxaan dhahaye haddaynu delete dhahno for example delete cells okay entire row baalkao dhan bay naga dhilgaraysmi waxaan rabaa in xaggan oo kale split cells and dhahno for example okay iminka waxaynu rabnaa si aan matalan maxaynu nidhi si aynu u kala qaybino alaabaha waxaynu samayn doonaa matalan maxaynu nidhi inaga computeradii laptopada meelahaas ku keen maran hard diskigii wixii device lagu connect garay meelaha maran matalan haddaan insert above dhaho oon xaggan matalan kusoo qorto alaabta ama device-ki yaala bakhaarka dabadeedna aan maxaan dhahay isku merge gareeyo inta mergeda intaan soo aragnay haye waa ciwaan labaad
waxaan rabnaa labadan tableka alaabta bakhaarka taala ee kombiyuutarada ah ee computerska ah iyo deviceska yaala bakhaarka in aan kala table ka dhigo way kala madax banaanaadaan oonan meel laga maamurin maxaynu samaynaa marka intaanu soo istaagno mid ka mid a ayaad split table dhihi dabadeedna waxaad aragtaa in ay kala baxeen labadii table kan markaad si gaara ula macaamili karto ood sidaadii dee yani maxaan dhahay dad design ka bedelayso haddaad wax u samaynayso coloring manaamin waxyaabihii aad ka rabto o dhan kana sidaas oo kale aad u samayn karto wixii aad ka rabtay si gaara marka xagga maxaynu yidhi waxaynu yidhi haddii aad rabto inaad kala qaybiso oo iminka matalan computerskan baa rabta inaad ka dhex saarto tablekaba oo qayb gaar oo table gaara rabto split table dheh way kala baxayaan xaggan dabadeedna ciwaan gaar ugu samey insert above inta tirahdo kuwaana gaar intaa inaan isla fahnaan malayn okay cashirkan waxay noogu ekaan doonaa intaas waxaad soo practice garaysaa merge cells oo ahaa inaad cellska isku furto sida ciwaanada iyo waxyaabaha aad u samayn karto split cellska inaad kala qaybin karto oo dhowr nooc ama maxaan dhahay column iyo rows kusoo dari karto split table inaad table kala qaybin karto oo laba nooc oo kala duwan oo yacni waa haddii aad intaad marka koowaad hal mar meel ku wada qorto marka dambe aad rabto inaad kala qaybiso intaa waxaa noogu dhan cashirkeeni tableka hoseeyey waana cashirkii saddexaad cashirka afraad waxaynu kusoo gabagabayn doonaa intaan baynu arki doonaa waxyaabahan kabacdina waxaynu sii wada doonaa pictures saasaan usii socon doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi